بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo kala socotaan warbaahinta caalam media anigoo cali rashid maxamed ayaa idin warrami doona barnaamijkeena daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin xaaladda dagaalka oo sii xoogaysanaysa dhimashada oo kor u sii kacaysa dhaawacyada oo sii kordhaya iyo burburka deegaano badan oo saameyn ay ku yeelanayaan dagaalada iyo duqeymaha Israa'iil ay ka wada magaalada Gaza iyo qaybo badan oo dhulka reer Falastiin ka mid ah dunida maxay ka tiri dhibaatada ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil daawade mar kale soo dhawow fiidiyoga noo share garay YouTube-kana subscribe inoo saar si bulsho badan aan u gaarno inta garab istaag noo soo muujisteen daawadayaal waad ku mahadsantahay dagaalada qaraar ee u dhaxeeya Falastiiniyiinta gaar ahaan kooxaha Hamas iyo Islamic Jihad iyo ciidamada Israa'iil ayaa wali sii soconaya maalintii saddexaad ciidamada Hamas iyo kuwa Islamic Jihad ayaa la sheegay in maalinkii saddexaad ay ka dagaalamayaan gudaha Israa'iil deegaanada ay deegaamisatay ee ku yaala dhulka Falastiiniyiinta dhimashada soo kala gaaraysa dhinacyada dagaalamaya ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta iyo isla dadka rayidka ee duqeymuhu ay ku dhacayaan ee ku nool magaalada Gaza iyo deegaanada kale ee Falastiiniyiinta ayaa aad u sii kordhaya warbaahinta ayaa waxay aad u tabinayaan dhimashada iyo dhaawacyada oo aad isu bedelaya saacadba saacada ka dambeysana hadba kor u kacaya warbaahinta ayaa taminaysa dhimashada dhanka Israa'iil ay kor u dhaafayso 1,100 qofood dhinaca Falastiiniyiinta ayagana dhimashadu 400 qofood ay kor u dhaaftay dawlado badan oo caalamka ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay dagaaladan maalinkii saddexaad soconaya iyo duqeymaha xoogan Israa'iil ay ku garaacayso dhulka Falastiiniyiinta Israa'iil ayaa ku dhawaaqday ciidamadeeda kaydka oo 100,000 oo ciidan gaaraya iyo kuwii hore u shaqeynayay dhammaan safka dagaalka la soo gelin doono sidoo kale Israa'iil waxay garab ka dalbatay wadamada reer galbeedka waxaana wadamadaas reer galbeedka badankoodu ay ka soo jawaabeen dalabka Israa'iil warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ay go'aansatay in markab dagaal ay u dirto Israa'iil si uu u garab siiyo markabkaasi oo la socdaan ciidamada fara badan sidoo kale tana ka caawin doona sistamyada difaaca iyo hubka ay ku dagaalami lahaayeen Israa'iiliyiinta dawladda Mareykanku waxay sidoo kale sheegtay in 3 qofood oo Mareykan ah ay ku geeriyoodeen halka Thailand ayaduna ay sidoo kale sheegtay inay uga geeriyoodeen wadankaasi ilaa 12 qofood oo u dhashay wadanka Thailand dadka gacanta u galay kooxda Hamasna ay ku jiraan 12 qofood oo Thailand ayaguna u dhashay 1,000 qofood in ka badan oo shaqaale Thailand u dhashay ayaa sidoo kale laga daabulay Israa'iil iyadoo sidoo kale 30,000 oo qofood oo shaqaale ah la sheegay in Thailand ay uga sugnaayeen wadanka Israa'iil sidoo kale wadamo badan oo caalamka ayaa sheegay in dadkooda ay ka daadgureeyeen dhibaatada dagaal ee ka taagan Falastiin iyo Israa'iil dhimashada Falastiiniyiinta duqeymaha Gaza ka socda iyo dagaalada ku geeriyooday ee wasaaradda caafimaadka Falastiin ee Gaza waxa ay sheegtay in 436 qofood oo Falastiiniyiin ah ay geeriyoodeen kuwaas oo 81 qofood ay yihiin caruur halka 61 kaleetana ay haween yihiin sidoo kale dhaawacyo ayaa soo gaaray dadka reer Gaza ee duqeynta lagu hayo waxaana dhaawacmay 2,271 qofood sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay iyadoo 244 qofood ay yihiin caruur 151 qofoodna ay haween yihiin saacadba saacada ka dambaysa waxaa korsi kacaya khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka iyadoo dhimashadu marba marka ka dambaysa ay sii badanayso dhaawacuna ka sii darayo inkastoo warbaahintu kala duwan yihiin dhimashada dhanka Israa'iil haddana warbaahinta badankeedu waxay tabinayaan in hadda dhimashadu ay ka badan tahay dhanka Israa'iil 1,100 qofood oo badankooda ay ku sheegayaan inay yihiin dad shacab ah hase ahaatee Hamas markoodii hore waxay weerar gaadma ku qaadeen saldhigyada ciidamada iyadoo ciidamada fara badan oo Israa'iil ay ka mid yihiin ka soo qabtay dhanka Israa'iil waxay sheegtay ciidamada gacanta looga dhigay ay gaarayaan ilaa 100 askari in ka badan sidoo kale tana Falastiin ayaa dhankooda sheegay gaar ahaan kooxda Hamas in ciidamada ay hayaan ay dhawaan soo bandhigi doonaan magacyadooda iyo tiradooda wadamada reer galbeedka oo badankooda afka ka taageeray sidoo kale tan ficil ahaan u muujinay taageeri doonaan Israa'iil ayaa shacabka wadamadaasi ku nool waxay isugu soo baxeen banaanbaxyo wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin ayaana banaanbaxyadaasi laga soo sheegaya waxaana dadku isku soo baxay ay taageerayaan Falastiiniyiinta dawladda Turkiga ayaa dhankeeda sheegtay inay dhexdhexaadin doonto labada dhinac inkastoo madaxweynaha Turkiga uu sheegay inay ka go'an tahay taageerida shacabka Falastiiniyiinta haddana waxa uu sheegay inay raadin doonaan xal nabdoon sidoo kale Shiinaha ayaa isaguna ku baaqay in xal nabdoon la helo laakiin si toos ah waxa uu garab istaagay Falastiiniyiinta dawladda Iiraan madaxweynaha dawladda Iiraan Ibrahim Raisi ayaa sheegay in wada hadal la yeeshay madaxda kooxaha Falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira Israa'iil asagoo ku booriyay inay dagaalka sii xoojiyaan
dhanka Lubnaan oo shalay Xisbullah iyo Israa'iil ay gantaalo isweydaarsadeen ayaa weli sidoo kale xiisado ay ka taagan tahay ayagoo Xisbullah ku dhawaaqay in gantaalahooda iyo ciidankoodu ay diyaar u yihiin garab istaagga shacabka masaakiinta reer Falastiin ee Israa'iil ee xasuuqa ku hayso. dhanka Israa'iil markasta waxay xoojinayaan in dagaalku uu yahay mid sii daba dheeraan kara isla markaana weli kontaroolka iyo maamulka qaybo ka mid ah xuduudka dhanka Gaza ay la lahaayeen aanay gacanta ku haynin, waxayna ku dhawaaqeen inta Falastiiniyiinta ay ka saarayaan deegaanada ay soo qabsadeen inaan dagaalku marna istaagi doonin, wada hadalna aysan geli doonin. Safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in Xamaas ay galeen dambi dagaal ayna tahay in lagu soo eedeeyo dambi dagaal, isagoo dambi dagaal ku tilmaamaya ciidamada Israa'iil laga qabtay ee Gaza loo qaaday. hase ahaatee reer galbeedka Israa'iilba waxay iska indhatirayaan xaqna ay u arkaan inay tahay baabi'inta shacabka Falastiiniyiinta. daawadayaal, dhibaatooyinka ka dhex taagan iyo khasaaraha ka dhalanaya dagaalka maalinkii saddexaad soconaya marba marka ka dambeysa waa uu sii kordhi karaa. intaa warkan la mid ah kulmayna waxaan kaga tegaynaa daawadayaal si ay nabadgelyo.